maamulka gobolka Gabiley iyo degmada ayaa waxa ay ka qayb galeen soo dhaweyn ballaaran oo Gabiley loogu sameeyay Suldaan Maxamed Suldaan Barre Warsame iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ka kooban caaqilo salaadiin iyo waxgarad. faafahinta warkaasi waxa Gabiley ka soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkaasi. maamulka heer gobol iyo heer degme magaalada Gabiley ayaa maanta si diiran u soo dhaweeyay Suldaan Maxamed Suldaan Barre Warsame iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ka koobnaa cuqaal salaadiin iyo waxgarad. intii aanay soo gaadhin wafdigani uu hogaaminayo Suldaan Maxamed Suldaan Barre gudaha magaalada Gabiley waxa kaga hortagay maamulka gobolka duleedka bari ee magaalada Gabiley waxaana loo soo galbiyay gudaha magaalada Gabiley waxayna booqdeen wafdigani uu hogaaminayo suldaanku gurigii uu ka deganaa magaalada Gabiley. Allah u naxariistay marxuum Chief Caaqil Cabdi Ilaamaan waxayna qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumku uga tacsiyadeeyeen geeridaasi ku timiday marxuumka. intaasi kadib waxay wafdigu u kicitimeen xarunta dawladda hoose degmada Gabiley halkaas oo ay ku qaabileen maayarka magaalada Gabiley iyo xogayaha fulinta dawladda hoose iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley. waxaana ugu horeyn halkaasi warbaahinta kala hadlay maayarka magaalada Gabiley Shucayb Maxamed Muuse iyo xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abakor iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley. waxaana hadaladoodii kamid ahaa in maanta Suldaan Maxamed waxa weeyaan iyo wafdiga ballaaran ee hogaaminaya salaadiinta kale iyo odayaasha kale sida Suldaan Siciid iyo Suldaan Axmed Nuur dhammaan wafdiga la socda ee kale sharaf weyn bay noo tahay maanta Gabiley ahaan inaan noqono gobolka koowaad ee maaragtay Suldaan uu yimaado ama kusoo maanta maalintii afartanaad ay tahay ee suldaanka ahaa Suldaan Maxamed Suldaan Barre oo maanta Gabiley yimid aad iyo aad baan suldaanka ugu soo dhaweynaynaa degmada Gabiley. waxaan ku leenahay sultaan soo dhawow degmadaadii iyo gobolkaagii. maanta waxaan soo baxnay soo dhaweyntii suldaankaanu maanta aad iyo aad ugu soo dhaweynaa. imikana waxaan kaga soo xidhiidhnaa anagoo sii gudbinayn gobolka Awdal. gabadhii waxaa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyey oo u badan mahadnaq Suldaan Maxamed Suldaan Barre Warsame waxaana hadaladiisii kamid ahaa qiimaha badan ee quruxda badan ee wasiir wasiir maanta la dad booqashada kaliya noqon maysa mid joogto ah oo ay sii wadoono mar walba ay noqon tahay baydo kumanima leeyahay noo soo dhaweystaan anaad iyo aad ku mahadnaqayaa. waxaan kaloo idinka taxsiyadeynaa waan gurigiisa soo marnay Chief Caaqilkeena qaaliga ahaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyay ee geeriyooday Cabdi Chief Caaqil Cabdi ayaan isagana si uga sidnay reerkii soo marnay kama ay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa saafar xadda iyo qiimaha iyo wajka furana noo soo dhaweyseen. gabagabadii waxa wafdigan maamulka gobolka Gabiley u galbiyeen caasimadda gobolka Awdal ee magaalada Boorama waxaana soo dhaweynta suldaankaasi qayb laxaad la ka qaatay xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley isla markaana ah xubinta ugu firfircoon golaha deegaanka degmada Gabiley. Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkaasi Somali Channel Gabiley. maamulka gobolka Gabiley iyo degmada ayaa waxa ay ka qayb galeen soo dhaweyn ballaaran oo Gabiley loogu sameeyay Suldaan Maxamed Suldaan Barre Warsame iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ka kooban caaqilo salaadiin iyo waxgarad. faafahinta warkaasi waxa Gabiley ka soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkaasi. maamulka heer gobol iyo heer degme magaalada Gabiley ayaa maanta si diiran u soo dhaweeyay Suldaan Maxamed Suldaan Barre Warsame iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo
oo ka koobnaa cuqaal salaadiin iyo waxgarad intii aanay soo gaadhin wafdigani uu hogaaminayo suldaan maxamed suldaan barre gudaha magaalada Gabiley waxaa kaga hortagay maamulka gobolka duleedka bari ee magaalada Gabiley waxaana loo soo galbiyay gudaha magaalada Gabiley waxayna booqdeen wafdigani uu hogaaminayo suldaanku gurigii uu ka deganaa magaalada Gabiley Allah u naxariistay marxuum Chief Caaqil Cabdi Ilaamaan waxayna qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumku uga tacsiyadeeyeen geeridaasi ku timiday marxuumka intaasi kadib waxay wafdigu u kicitimeen xarunta dawladda hoose degmada Gabiley halkaas oo ay ku qaabileen